magaalada Hargeysa waxaa kulan ku yeeshay mas'uuliyiinta shirkadii maamuli jirtay haamaha shidaalka Berbera. kulankani oo albaabadu u xidhnaayeen markii uu soo dhamaaday telefishinka Ariel ayaa wax ka weydiiyay ganacsada Faysal Xaaji Yuusuf Aadan oo marka hore telefishinka weydiiyay bal hadda kulanka iyo wixii ay kaga wada hadleen wareejintii shalay ka dhacday haamaha shidaalka Berbera may jirin shirkadaha BOG cid ku metelaysay gudidii fulinta haday gudoomiyay tahay haday ku xigeenkii tahay haday tahay xogayihii gudidii fulinta maanta waxaan filayaa xukuumadda Muuse Biixi Cabdi inaanay waxbaba ugu timaadeen haamaha hadii aan BOG ilaahay gacanta u gelin sababtoo waxaan la wareegnay iyadoo 2 milyan iyo 500 oo dollar oo deyn lagu leeyahay ay wax laga qaato mooyaan waxba lagu celin dakhliga ka soo baxana intiisa badan horta qasnada dawladdu ku dhacaa waxa BOG ay qabanaysay ama aan qaadaynay waxay ahayd kharash yar loogu talagalay maintenance-ka haamaha inaanay haamuhu dumin taas waxa halka ay ahayd in xukuumadda maanta jirta Muuse Biixi Cabdi ay noo mahadnaqdo oo shirkadaha soo dhaweyso wax qabadka ballaaran iyo horumarinta iyo lacagtooda ay wadanka u quudeen geliyeen laakiin marraba ma naafilayn in jujub iyo hantideeda inta la eegay aanu de wadanka gelinay in jujub iyo khasabna laga wareego iminkana arinta waxay noo maraysaa anagu wali waxa maana wareejin si official waxa maana wareejin hadda xukuumaddu markii ay haamaha la wareegaysay oo maamulka idinka wareejinayay xubnaha idinka kamida ayaa ka soo muuqday miidiyaha oo dabcan joogay oo wareejinta xukuumadda u sacabatumayay haye sidaad u aragtaa adigu xubnahaasi film ay cid ay ku metelayeen oo mandate ka haysteen oo shirkadaha inay jirto laakiin arinta waxaan ka digaynaa oo madaxweynaha aan u gudbinaynaa inaan burbur shirkadaha dhexdoodii si aan u imanin oo aan loo oran ninkii madaxweynaha isku reerka ahaayeen baa wareejiyay oo shirkaduhu kala shakiin oo madaxweynuhu ama wixiisii hoos buu siiyay ama wala si yar luqun laabay ama waxba halka yar jira sababtoo ah shirkadihii kale oo dhami arintaas way isweydiiyeen waa wax lala yaabay noqotay cid uu ku metelayna anigu maanan markaan isweydiinay cid waliba bari bay ka noqotay marka arintaana waan ka digaynaa inaan shakhsi gaar ah la oran madaxweynaha isku reer yihiin ahaan aanu hanti umad leedahay faraha ula gelin madaxweynuhuna inuu arinta ka feejignaado ayaan halka ka digaya idinka ama gudoomiyihiinu hadiido ama xogayihiinu hadiido ama gabiyahaantiba gudidiinu diiday xukuumadda hadda wareejisay idinkuna waxa leedin dhaqaalaha dabcan halkii naga galay imika maxay idin talaa oo maanta aad go'aamisan waxa noo talaa horta shirkeyga maanta waanu noo dhamaanin waxaan isla garanay inaan kulan dambe isugu nimaadno oo arinta aan aad u la faguro madaxweynahana ergaan ugu maqan ergadana waa ka warsugaynaa sidii aanu anaguna waxa iyagu heli lahayn wada shaqayntiina de ay u soo noqon lahayd haamaana si official aan ugu wareejin lahayn badan oo horena warbaahinta ula hadasheen ilaa haddana waxa ku celcelisaan dabcan dhaqaalaha naga maqan oo haamaha naga galay ummadda maxaad u sheegi kartaa dhaqaalaha xadiga intee leeg weeye dhaqaalahana ilaa hadda dabcan wararkii ugu dambeeyay dabcan ku soo saarisay dhaqaalaha horta naga galay cad ee transparent ahi waxa weey lacag ilaa 3 milyan iyo sarifa marka aanu ka reebo marka hadaan ku balaas gareyno sida heshiiskayga ku qoran 25 sanadood anagu aanu kiraysanay wixii aan heli lahayn hadaan ku darrana waxay noqonaysaa lacag adigu aad u badan oo ilaa 30 milyan ama 20 milyan san ku qiyaasayno sababtoo markii hore waxaan taagnay war waxaygu nasiya wixii document-kii baan haynay support document-kii baan ku wareejinay hadda madaxtooyada ergaad dirateen madaxtooyada hore inay idinka qaabisho sidaad hore warbaahinta ugu sheegteen way diiday ama madaxtooyadu way diiday hadda hadii ergadiinaana la diido maxaa idinka qorsha waa su'aal aad u fiican waxyaabahan maanta ka wada hadlaynay fadhigayagii bay ahayd ergadaas hadii aanu ka weyno jawaabtii saxda ahayd inaanu u maro siyaabo badan baa jira oo wadankeenu wuxuu ku dhisan yahay waxyaabo badan oo macnawiya rag baa soo jeediyay war maqaabkii qabaa'ilkeenu maraa oo shirkad waliba de company bay tahay maqaabka sharcigaynu maraa
oo maxkamad baynu dee arrinteena geynaa ma dee reeraynu nahayo waliba ma reerkiisii buu kula noqdaa waxa soo kordhay iyo dee hantidiisa ka maqan adigu markaas laakiin iminka waxay arrintu ay ku aanu isla garannay inaanu horta ergada aan diranay ka warsugno ilaa iyo inta ay jawaab haddii kale waxay inaanu sifo u maro sharciga oo aanay maxkamad ka fursanayn bay arrinteedaas u eegtay Badri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa.